lamaanayaasha jecel wadaag ah ee aan weli aqal gelin halis badan ayay u bareeraan mararka qaar. qolkan ku isticmaalay musqusha aadaas dhahay macnaha musqusha intaanaba gaarin inta musqusha iridii aan maraa mir ugu dambeysay baan waxa soo isgaatay isticmaashay maxay ahaayeen sunta jiirka. Nimcaan Xuseen Jimcaale waxa uu cabay sunta dooliga kadib markii loo diiday gabar uu jeclaa. Naftiisa oo halis ku sugan ayaa la geeyay xalay isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho. Go'aankeyga isticmaalay waxa ay inaan macnaha jacaylkeyga inaan helo iyo inaan aniga nafteeda u jara maxaa ka dhaxeeya qofka adduunka ugu jeclaa hadii horteeda macnaha lagu canaadayo dameerku ku siimay waxna aad qaba karin marka waxaad ka bariyaysaa sameynaysaa. Okay ayadu marka ku jeceshaa si aad ugu jeclayd maadaama isku diraysan si kaliya leh arinta ku ay jeceshaa 100%. Nimcaan oo sunta dooliga u cabay gabar uu jeclaa awrid ayaa waxa la keenay qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka Kalkaal qaybta sad u jeedaan gargaarka degdega dhabarkiisa ay ku taalaa xaaladiisu way fiican tahay. Dr. Maxamuud Cabdi Nuur oo ah dhakhtarka kiiska Nimcaan gacanta ku hayay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda ee Nimcaan hadda ay fiican tahay lana rajeynayo in uu dib ugu laabto noloshiisii caadiga ahayd iyo qoyskiisii maadaama ay u sameeyeen baxnaano. Nimcaan markii la keenayay horta wuxuu ku jiray xaalad oo wareersanaan laakiin ma gaarsiisanin heer miir daboolan waqtigu daa waxa soo cabay iyo waqtiga nolol keenay adigu ugu badan saacad camal u dhaxaysay sidoo noo sheegay markii xoogaa miirkiis toos noqdana wuxuu noo sheegay inuu wax yar hal mar ka baday 2 jeerna oo ma tagay soo marka daawadii ama suntii jirkiisa saaid uma saameyn guud mees ku yeelan xaaladii naxdintii oo ka qaaday suntii oo cabaayay iyo wixii oo asaga dham dabaqsanaan gelisamaan wax miir daboolan saaid hadda oo suntiisa jirkiisa saameyn guud saaid isku uma yeelan markii nolol keenay waa fiirinay xaaladiisa qiimeynay waa wax kasta laga cabiray dhiigiisa sokortiisa kulli wax kasta waa cabirnay ka bacdi xaaladii gargaarka ay markaas faleembooyin iyo wax in la siiyo aan isla markii laga gaaray ka bacdi adiga 30 daqiiqo ka bacdi baa xaaladiisa caadi ah oo hadlay. Duruufo badan oo ka haystay Nimcaan dhanka ehelkiisa iyo qaraabada gabadha uu jecel yahay ayuu sheegay inay ku kaliftay inuu naftiisa gooyo sidaasna uu cabay sunta dooliga. wax walba waxay ka furantaa macnaha qofka ayada xageeda Soomaali ani wax walba diyaaran la ahay macnaha ayada xageeda macnaha waxaan ka cabsi qabay dhanka waalidka way waalidka ayaga is khilaafsan qaarna waa iyo galay qaarna waa diidanay anigana macnaha wax garaba kama haysto dadka aniga dhashay ka dhibaato inta saakay ma ku fikirtay marka inaad naftaada geyso in qatar diini ah iyo mid bulshada ay leedahay diini ma ku jirta baba hadii diin ay qof adiga murugaysan jacaylka murugaysan tahay diin ma ku soo galayso qalbigaaga Soomaaliya. Muddooyinkii u dambeeyay Muqdisho iyo gobolada dalka waxaa ku soo badanayay dhalinyarada naftooda halista u galiya arrimaha jacaylka. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho.